jarayd oo ku saabsan arrin soo baxday 24 saacadood ugu dambeeyay oo ku ah qaranka Hagardaamo. Arrintaas waxay tahay sida ogeydeen 15 December waa kii xumaaday calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya. Wanagii u yeeranay danjiraheennii iyo safaaradda tiimkii naga joogay calaaqaadkiina waynagii hoos u dhignay. intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Djibouti ee madaxdayga shirka waxa la saaray guddi xaqiiqo raadina oo warbixin ku soo celiyay iyaga. waxaan idinku yeeray maanta warbixintii oo soo baxday. warbixinta igada soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dawladda Djibouti walaalaan lahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqo raadsi noqoto oo ay soo aruuriso. riboodkii uu soo baxay riboodka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqo raadska. waxay ahaayeen 6 reer Djibouti ah iyo xubin ka socotay iyaga. 6 reer Djibouti waxay ahaayeen ambassador Yaasiin Cilmi Buux oo ah safiirka Djibouti u fadhiya Kenya, ambassador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambassadorka Djibouti u fadhiya Soomaaliya, General Daahir Cali Maxamed oo ah general ka tirsan ciidamada Djibouti, Colonel Cali Aadan, Colonel Maxamed Barkad, Colonel Hussein Idris iyo xogayaha oo ka socday iga. riboodkii soo baxay dawladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waa waxaan loo fadhiyin oo aan la filahayn. wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqo raadinta ee Djibouti ka socotay waxay ka soo saareen rakama jira airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yiraahdeen Soomaaliya khaldanaydoo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaada iyo kuwa ciidanka iyo kuwa waxaan loo diray. waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay oo calaaqaadka loo jaray. waxay isticmaaleen waxay yiraahdeen the long standing grievances Djibouti ee Soomaaliya iyo ka dhaxeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. arrintaana runtii arrin gafa oo la khalday bay ahayd. waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahi ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyay markay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Gedo gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdhoon iyo deegaamadii aynu ka soo sheekeynay. runtii markii guddida la sameeyay sidaan hore u sheegay aad baan u soo dhaweeyay. laakiin waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag. waxaan xasuustay markaan arkay warbixinta ninaanu isnaqaan baanu habeen annagoo wada joogna fiid buu iga tegey subaxdii buu soo wacay markaasuu inuu xalay markaan kaa tegay gabadh baanu isbarannay waxaan rabaa inaan gabadhii arooso oo goormaad aroosaysaa berri baan rabaa inaan guursado. wax ku dhaqan baynu leenahay horta inaad qoyska iyo gabadha iyo barato soo ma ahayno. wuxuu yiri gabadhani nin aniga ka horeeyaba weligeed salaamu calaykum ma oran telefoonna kama qaban. dhalinyarada tiraad baa u fahmaysaa. dabeedna waxaan ku yiri oo yaa kuu sheegay inaanay weligeed qofna salaamu calaykum oran telefoonna ka qabano iyadaa ii sheegtay. dhammaan riboodka waxaa ku qoran Juma ii sheegtay. Monica Juma wasiirka difaaca ee Kenya sida ay tiri Monica Juma say waxaa ku qoran riboodka Juma ii sheegtay. riboodkii Monica Juma ayaanu markaa halkan akhriyay. I wish inay iyadu qori lahayd sababtoo wax badan bay ka xishoon lahayd haddii iyadu qori lahayd wasiirka difaaca Juma.
dhaliishu maxay tahay markaa hal dhinac bay horta warkoodii qaateen way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida laba jeer bay Kenya ku noqdeen mandheeray tageen waxa laga bariyay balad xaawo u soo gudba waa diiday dadkii baa loo diyaariyay ciidamadii baa loo diyaariyay shacabkii baa loo diyaariyay soo gudba lagu yiri waa diiday marka xamar yimaadeen baa la yiri aanu idin kaxayno oo diyaaradeed saaro balad xaawo idin geeyno waa diiday arrintaasi dareen bayna gelisay markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bayna gelisay inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan dareen bayna gelisay ta ugu cajiibsan waxa weeye waqtigu soo baxay report ama warbixintu wuxuu soo baxay 25 January oo daraad waxa dhacay soo ma xasuutaan dagaalkii waa dhacay duulaankii qaawanaa ee araxda ay Kenya kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday baa 25 dhacay if you look like elephant walk like elephant sound like elephant then you are elephant haddaad sida maroodiga u socoto sida maroodiga u cido sida maroodiga u hadasho then maroodida haddaad maxaa isku soo beegay 25ka iyo reportka waxaanu ka fahanay in lagu bari yeelo waxay doonayeen inay gobolka gada qabsadaan dabadeedna la bari yeelo yiraahdo Kenya kuma jirto ayaaba cajiibka waxa ka mid ah report ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dul marnay xuduudda ma joogaan ciidamadkii waxaanu waraysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halka ka bixin waxa soo dhan waxa ahaa wax bias ah faceless ah unfair ah impartial wuxuu ka soo horjeedaa reportku dhaxdhaxaadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeedaa warbixintu shalayto statementkii ama qoraalkii uu soo saaray Musa Faqi madaxa African Union AU-da ee uu lahaa dagaalka gado wuxuu u dhaxeeyaa Soomaaliya iyo Kenya AU-di ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood waxa nasiib darro ah in walaaladeen inta qiri waayeen oo ay khilaafaan warkii AU-da waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee tilifiyada waaweyn ee ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya Kenya inay faraha ka qaado arrinta Soomaaliya waxa ay reportku ka hor imanaya shacabka gado ee madaafiicda iyo missileska ay carruurta ka laayeen ee Kenyaatiga ku soo rideen meydkoodii daawacoodii daawanay waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen generaalada iyo safiirada Djibouti uu meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabkii gado Soomaaliya iyo Djibouti ma raba arrintu inay noqoto arrin Soomaaliya iyo Djibouti u dhaxaysa waa arrin warbixin khaldan ku kooban kullu ibn aadam khada wa khayra khadaa'ina tawaabun qofku waa khaldami karaa meel buuna ka dhici karaa bini aadam baana loo yahay laakiin Djibouti waa walaaladii waa ehelkeennii waa walaalkeennii yaraa ee inagu aynu korinay ee xornimadiisa keennay ee ka shaqaynay without us la'aanteen Djibouti dalna ma noqoteen xorna ma noqoteen waxyaabihii ugu badnaa in lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii Soomaaliya loola dagaalayayna waxa ka mid ahaa xorriyadda Djibouti ee ay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaysay si ay ula dagaalanto super powerskii dunida jiray oo Faransiisku kow ka yahay ee haystay Djibouti ee Security Council-ka iyo majlis aan fadhiyay ee veto power-ka lahaa nuclear-ka lahaa ayay Soomaaliya iska hormadoobaysay si ay reer Djibouti xorriyad ugu noolaadaan heesihii loo qaaday kaydka radio Muqdisho yaalin maalintii la diiday in xorriyadda la siiyo 68 midnimadeennii mugdi gasho magaceeda ayay Soomaaliya oo dhani weer cas bay qaaday midnimadeennii mugdi gasho magaceeda ayay weer cas baa la wada xidhay in Djibouti loo diiday xornimadii markay xorriyadda heleenna waabaa beriyay bilicsan arooriye baxsan maalin boqoran bay noo qaaday waa walaalkeennii yaraa anigaygan idinla hadlaya waxaan xasuustaa waa uu imanayay madaxweynihii hore Djibouti Xasan Guuleed Abdidoon ilaahay oo naxariisto 7 subaxnimo
يعني فلنترلي حتى ما جري markii la yiri maamulaha la yiri maanta madaxweynaha Djibouti baa imanaya waanu yaacnay ilaa iyo 3 galabnimo 4 galabnimo casarkii subax 7 baanu cararnay si aanu isu taagno jidka airport 4 galabnimo annaga biyo cabin oo waxba cunin oo annagu iskay u yaacnay si aanu u aragno madaxweynaha iyaga labaad ayaan soo martay waxaanu jecelnahay wanaagooda waxaanu jecelnahay guushooda waxaanu jecelnahay horumarkooda laakiin reportkani wuxuu stain baa la yiraahdaa Englishka bar aan tirmin 100 sanadood ku noqonaya walaalnimada markaas oo walaalka mararka qaar yani waxay arintani hadaa saashanaysaa Kenya ma faragelinayso Soomaaliya macnaheedu waxa weeye farageliye arrintaasi arrin siyaasad laga daya maaha walaaladeenna guddida soo saaray reportkan waxay dhaawacayaan walaalnimada isleeyahay inay ka noqon doonaanoo ay raaligelin ka bixin doonaan guddidaasi 6 xubnood ee reportka qoray ehelnimada walaalnimada meel bay kaga dhacday sababta waxaan anagu u aragnaa dulmigu waa laba dulmiga qofka cadawga ah ku dulmo iyo dulmiga uu ku dulmo walaal labada dulmi hada waa dulmi isku mid ah laakiin waxa xun dulmiga qofka walaalka ah ku dulmo quraanka markay culimadu fasirayaan laqad dalama akhaaka marka laga hadlayo laqad dalama akhaaka waxa weeye uu ka fog yahay bay yiraahdaan dulmiga walaalka dulmiga kale ee qofka aawil bay sahaysay uu ku dulmo ninku xiga naxliga ku gala naari kugu beer meel buu kaaga dhacaya aadanu uga xunnahay arrinta laakiin wax hadda grievances oo nagu jira ma jiraan oo walaalka hadduu ku guddi baa khaldantay reer Djibouti ma khaldamin shacabkii Djibouti ma khaldamin dawladoodina waaba dawladeenu la saaxiibka ahayna walaala ahayn walaalka hadduu gaban yahay geela kula raaco asaanad guulguuli karin geelu sahalaabo inta gaawe loo soo lisaa geed la hariya walaalkaaga yari hadduu khalad sameeyo lama dilay caana la siiyo waxaan rabaa ina ogaataan in Soomaaliya dulmi badan ku socdo dagaal badan ku socdo waxa dagaalkan aan ku soo gabagabeynaya statementkayga dagaalkan oo dhan wuxuu inoogu socdaana sidii aan idin sheegay doraad waa iftiinka inoo soo baxay ee dawladnimada iyo rajada iyo kabashada inta la inagu dilaya la inagu haystaa waa inta inagu nabad baynu rabnaa horumar baynu rabnaa Kenya la rabnaa wanaag Ethiopia wanaag la rabnaa Charko dhammaan wanaag la rabnaa Djibouti iyagu waaba walaalkeennii yaraayeen inuu gacanta ku haynay hadaynahay dawladda Soomaaliyeed aynu waligeenba dadka ka xigsanayna difaacooda aynu diyaar u ahayn inaynu u dhimano nafta u hurro marka inagu mar walba waxaynu rabnaa wanaaga iyo horumarka iyo daris wanaaga iyo barwaaqada laakiin dad badan waxay rabaan Soomaaliya dib u noqoto ay kufto jabto soo kaban weydo laakiin sidan oo kale waxay ku dhacday 1940kii dalka weyn ee Britain la yiraahdo Ingiriiska meel walba waa laga soo weeraray cir iyo dhulba waa la isaga yimi walaalkoodii Mareykanka ahaana dib u dagaalkiisa isaga taago waxba waa la gali waayay hadalkii Churchill baan ku soo gabagabeynayaayo markay dadku yaabeen yiraahdeen inaynu isliibaynaa wuxuu yiri Churchill we shall never surrender weligeen isma dhiibi doono maanta waa ku ayagu dunida ka talinaya Soomaaliyana mar bay ka talin doontaa geeska iyo gobolka ma mahadsan talaabada dawladda guddoon wataan halkan hadda u taaganahay waa taan leenahay warbixintani waxay ka soo horjeedaa African Union statement-koodii waxay ka soo horjeedaa xildhibaanadii iyo senatarada reer Kenya warkoodii waxay ka soo horjeedaa cadaymihii waxay ka soo dagaalkii dhacay bay ka wixii oo dhan waa la arkaya marka waxaan rabnaa inaan dhaahno wixii aad soo qorteen iyo waxa meesha ka jira isku mid maaha waana naga cadaynay ha waxa markii shirkii ay summit baa la yiraahdaa madaxdu markay isu tagaan
samidkii ka dhacay Djibouti ee ka dhacay igad madaxda igad isugu tageen Soomaaliya waa tii geysatay dhibaatada ay Kenya ku hayso Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib halka waxa ka dhashay bal arrintan dhibaatada ah ee Soomaaliya sheeganayso in loo diro guddi xaqiiqo raadis guddigii oo ay ku jiraan 4 sarkaal iyo 2 safiir iyo xubin igadi ayaa tagay dan dabadeedna waa kuwa Kenya ka dhamaan waayay labada jeer ku noqday ilaa Mandheere tagay meel walba maray riboodkii mar walba wuxuu yiri Juma tiri uu nagu yiri riboodkii waa kaas channelada diblomaasiyaddu mar walba way furan yihiin wayna socdaan laakiin mar walba waxa muhiim ah shacabka Soomaaliyeed iyo dunidaba inaan u cadeyno warka laba warka siyood baa loo cadeeyaa channelka diblomaasiyadda iyo channelka furan ee dadweynaha waxaan rabnaa 20 milyan oo Soomaaliyeed baan mas'uul ka nahay inaan u sheegno xaaladda dalkooda iyo mar walba halkay marayso xaq bay noogu leeyihiin waana waajib inaan u cadeyno dhahno guddidii warkaas ay soo saartay warkiina waa inta aan idin sheegay waxa ay soo qoreen su'aashu anigu horta waxaan gaar ku yeelay guddidu waa shakhsigu isagoo dawladda diratay ayuu sometimes adiga haddii imika dawladda ku dirato laga yaabaa si aad adigu wuxuu jecelayd ama si aad wuxuu necbayd waa xaakinka ama qofka judgmentku iyadoo dawladdu xaakin ka dhigtay soo cadaalad darro ma samayn kartid ya adigoo xaakim oo gudoomiye maxkamadeeda ma oran kartid dawladdu ku magacawday laakiin personality-ga iyo akhlaaqda iyo dhaqanka ayay ku fiican tahay guddidu marka la marka waxaan arkayaa guddida xaqiiqo raadinta ahi in ay ku sameeyeen walaalnimadeennii bar madow oo u baahan in la tiro dawlad arrinta horena waa uga jawaabnay 10 jeer baan ka joognay waxaan u maleynayaa adigu warka dhinac kaliya ka qaadata taasina kuma fiicna saxaafad ahaan warkaagana waan hayaa laakiin mid baan ku sheegaya dalalku dawlad walba bilbilaahi calaykum kelmad aan dhageysta war dunida dawlad ma aragteen tiraahdo ciidankayaga waxaan u daranay heblaayo waana halkaana 100 baa noo jooga halkaana 30 baa noo jooga halkaana 50 halkaana 800 ruuxaasi dawladnimo maaha dawladuhu ma sheegaan ciidamada u tababaranaya hadda ciidanka ku tababaranaya iyo meelaha kuugu tababaranayaan iyo tababarka nooc ay qaadanayaan aad suuqa soo dhigto weligeed ma maqashay taariikhda Soomaalida iyagoo ka sheegay weligeed ma maqashay Kenya oo ciidan baa meel lagu soo tababaraya weligeed ma maqashay Ethiopia inta meel Mareykan baa loo diraa Ruush baa loo diraa Japan baa loo diraa China loo diraa ciidamadeena waxa lagu tababaraa dhammaan dawladaha masaaxiibka nahay Eritrea kamida Turkiga baa kamida Uganda kamida Djibouti baa kamida meel walba way inoo joogaan meel walba ciidan baa inoo jooga la inoo tababaraa laakiin waa dawlad xumo inaad ku tiraahdo halkaas intaas sii joogtay halkaas la igu tababaraa sarkaalka la tababarka loo qaatay wuxuu diyaar u yahay inuu naftiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa uu u huro dalkiisa ilaa daashaan waan idin joogayaa walaalnimadeenu waa wax weyn walaalnimadeenu waa diib بلاد والشعر بلاد لكن ده خلط بقى ولا الخاص ما يكره وانا كوري لقد ظلمك اخاك ولا الخاص ده وكدول بكره waxaan ku qabana uu soo saari kara taasi waxay u baahan tahay marka la isu yimaado isharka la isu yimaado la yiraahdo arintaas meel ka dhacday ahayd gafahay de waxana ugu filan ba wixii daraad dhacay ee maatida lagu laayay ee hoobiya la dhacay ee madaafiicda la dhacay ee la soo 500 oo ciidan waxay yiraahdeen waxa la wax ciidan oo xuduud xagga ka jira ma jira
500 oo ciidanna habeenkiiba ka soo tallaabay dabeedna waa kuwa African Unionka qaylada ku dhuftay Kenya iyo Soomaaliya arrinta wada hadal ku soo dhameeyay mar walbana sida ay African Union ku sheegeen diyaar baan u nahay wada hadal diblomaasiyad nabad iyo xasilooni inaan kula noolaano walaalahay aad baa u mahadsantihiin thank you very much